wafdigan uu hogaaminaya xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo saaka subaxnimadooda ka baxay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa socdaal kala duwan ku kala tagay degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan iyo sidoo kale deegaanka Garjir waxayna halkaas kula kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada. xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa u tagay deegaanadaas inuu wax badan ka ogaado xaaladda ay ku sugan yihiin dadka deegaanka ku nool oo in muddo aan wax gurmadi soo gaareen. kadib kulamada markii ay soo ilaadeen ayaa waxa warbaahinta la hadlay madaxda deegaanada oo maantay booqday xildhibaanku iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada. markan ugu dambeeyana Matabaan lagu soo dhaweeyaa xildhibaan qaali ah tahay maxaa islaayaha saaka dadkaaga waa u jeedaa shuxuurta ka muuqata xaaladada way isbedelayaan islaayaha maantay ilaa bariyahana way isbedelaydi waa dadkaagii ku soo dhawaaw degmada Matabaan marka oo baaxadaas la qodqod Garjir Beergariid Matabaan oo Tonkiya rabitaan ay ku baahan yihiin waxay intaas martaqada kugu sameynayaan waxaan rabnaa inaan il gaar ah nagu eerto mudane waxaan rabaa inaan aad gaayar u milicsado safarkii xildhibaanka ujeedooyinkiisii uu ku soo sheegay oo ay heeday inuu deegaanada marayo inuu duhaysiin gelinayo inuu baakiliyada shir meesha laga sameeyo waftiga hordhacu yahay intaba aadan kugu mahadcelinayna. dhibaato iyo dhib kale ma aan qabno dhibaatadan qabna waxa noogu badan cisbitaal la'aan isbitaalkii oo noo yaalo dhagaxii iyo oo noo yaala ciidii wax kale oo ku samaysanan aan weyn waqtigaana waqti qayraysan oo yahay dee adigoo dalka iyo dadka iyo diinta u dhashayna maanta ilaahay noo keenay waxaan codsanayna wax la codsaday ilaahay baa leh dee taas inaad naga saacido iyo wax ka sii badan ayaan ka codsanaynaa. waa degmo aad u daalan waa degmo xagga siyaasiyiinta ka daalan waa degmo xagga ganacsatada ka daalan waa degmo xagga dhaqanka ka daalan waana degmo qadiimi ah oo aad ku xisaabtamayeen haddii qurbo joog yihiin haddii diyaasbara yihiin halka degmo aan ku xisaabtamayno oo la agraday waaye waxaan rabnaa xildhibaan kaana codsanaynaa maanta inaad Matabaan gacanta ku dhigto. wafdiga maanta gaaray deegaanadan oo ay qayb ka ayeen xildhibaano ka tirsan dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug oo kamid ah xildhibaan Faysal Cabdulle Faysal Gacmi iyo mudanayaal kale oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug ayay halkaasi ka hadleen waxaana ay sheegeen inay ka maamul ahaan ay doonayaan in dadkani gacan loo fidiyo sida ugu wanaagsan ee gargaar loo soo gaarsiin karana ay ka shaqeeyaan. galmudug iyo dawladda waxay idinka jira wixii aan dooni karno waa idinla doonaynaa laakiin reer Matabaan adinka la idinka rabaa inaad soo leedahay waxaan hadda Matabaan yara waxa laga sameeyaa meesha show dhinaca Beergariid xageeda inay dhacdo maahan wada ognahay waxaan maleynaa maanta inaad sharaf u yeelateen inaan hadda ka hor in arkin xildhibaan ku matalay dawladda dhexe xildhibaano iyaga state ku matalay oo sala socda oo runtii ka wada shaqeynaya deegaanada galmudug isku xirkeeda iyo nidaamkeeda hadda ka hor aan soo arkin waxaan ku mahadcelinaa annaga iyo xildhibaanka waa sala soconaa wixii jiro aad dareemiseen rag badan hadda ay weydiiyeen meesha ka midana waxaas xoogaa si hoos ayaa loo dhammaystiray haddana xaaladdu aad ay muhiim u tahay waxaan maleynaa jawaabteeda waxaad ka qaadan kartaan isla socodkanaga runtii xildhibaanku ayahan safar oo meeshan ku yimid oo ku indhadhaynayo deegaanada galmudug baahiyaha ka jira annaga xildhibaan ahaan annaga wax badan ayaa u gudbinay. ugu dambeyntii mudane xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa sheegay in dadkani ay yihiin kuwa haysta nabad wanaagsan loona baahan yahay maanta in nabadda deegaanka ka jirta gobolada Hiiraan iyo Galgaduud la sii hormariyo waxaana ugu baaqay in colaado iyo dhibaatooyin muddooyinka ugu dambeeyay deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ay dib u soo laaban bulshada deegaanadaas ku nool oo ka soo kala jeeda deegaanada oo ka kala arrimiyaan maamul goboleedyada Hirshabelle iyo Galmudugna looga baahan yahay inay nabad iyo walaaltinimo ku wada noolaadaan maruu ka hadlayay arrintaana waxaa hadaladiisii ka mid ahaa deegaankan wuxuu ka tirsan yahay horta Hirshabelle gobolka Hiiraan uu ka tirsan yahay Hiiraanna Hirshabelle uu ka tirsan yahay xuquuqay ku leeyihiin xuquuqdii ay ku lahaayeen dawlad goboleedka Hirshabelle waa ka baaqatay deegaankan oo mashaariic horumarin lahayd kuwa caafimaad lahayd kuwa bulsho lahayd kuwa amni lahayd inaysan waxba soo gaarin maamulkuna waana la wadaageen annaguna xuquuqaal ayaan soo noqon waa rajaynaynaa marka insha Allah wixii degmadan uga maqan gobolka Hiiraan iyo wixii uga maqan Hirshabelle insha Allah waan doonaynaa waana keenaynaa hadii Allah wadan ogolaado booqashadanada maanta aan ku nimid degmooyinkan Garjir iyo Matabaan waxay salka ku haysaa dabcan safaradii aan ku maray deegaanadan inaan ku horgalno xaaladaha ka jira
dadka aan matalayno ee deegaankan ku nool aan la wadaagno dareenkeenna ayagana aan ka dhageysano waxa ay qabaan iyo baahiyaha ka jira deegaankan annaguna aan u jahaysano sidii wax looga qaban lahaa oo baahidaas dawladda aan ku matalayna deegaankan looga dooni lahaa ama midda dowlad goboleedka ha noqoto ama midda federaalka ha noqoto si guud iyo si gaar ahaaneed buu isku arki doonaa insha allahu maalintii shalay ahayd markii xildhibaan mahad maxamed salaad uu xariga ka jaray ceelbiyoodyo uu ka hirgeliyey deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ee dowlad goboleedka galmudug waxaana uu sheegay in inta uu ku sugan yahay gobolada dhexe ee Soomaaliya oo wadi doono u kuurgalida xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta deegaanka xilli ay dadka deegaanada gobolada dhexe ay muddooyinkan dambe si weyn uga cabanayeen abaar saamaysay dadka iyo dunyada. Cabdijamal Macalin Axmed, Kalsan TV, Garijir.